الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa marka hore dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan daliyo dibadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta dhowr qodob oo ay ka mid yihiin arrimaha federaalka maalintii way ra'iisul wasaaruhu markuu imaanayay gobolka Mudug arrinta yoogada iyo waxyaalo la mid ah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan marka hore soo dhaweynayaa qaabkii ra'iisul wasaaruhu ku yimi magaalada Galkacyo dadka shacabka ugu yimi aad iyo aad baan soo dhaweynayaa markii ay koox Aranjan la yiraahdo isbaara u dhigatay oo dalka wareerisay sidii markii hore baan u ogeyn madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaruhu markay imaanayeen magaalada Garowe shirkii fashilmay halkan la isugu imaan jiray in lagu soo aadsay mar walba maqribkii markay ahayd nin walba si aan dadka shacabka ay u soo dhaweyn maaragtay fursad looga lumiyo inkastoo ay dadku soo darjeexeen oo markii dambe jidka soddonka ugu yimaadeen madaxweynaha habeennimadii ra'iisul wasaaraha maalintii loo Galkacyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka reer Mudug sidii ay u soo dhaweeyeen shacabka hadda waana wax lagu yaqaanay oo sharaf iyo maaragtay raganimo ah bay ahayd ra'iisul wasaaruhuna aad buu ugu mahadsan yahay arrinta waxaan jecelahay dawladda federaalka ah inay dalka iyada mas'uulka ah wixii horumar looga baahan yahay inay filiso aysan caqabad ku noqon koox tan gaar ah oo Imaaraad iyo Kenya soo dirsadeen hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa shisheeye oo aan dalkeena ahayn oo dhalan oo dariska xataa ahayn maalin walba mashaariic bay fuliyeen dawladda federaalka ah iyadoo dalka mas'uulka ah oo u dhaaratay oo ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu ugu horeeyaan calula iyo xaafuun gabadha ku dhibaatoota ama maaragtay ku dhiig baxdo ku dayac u dhimata adduun iyo aakhiro iyaga la weydiinaya sida iyadoo ay tahay inay dalkii cudurdaar u sameeyaan oo yiraahdaan maamulkii baan diidan maaha maamulku hadduu idin diiday anaguna waa diidnay dalka wax ka qabta hadday ciidamada tahay hadday mashaariicda tahay intaba ciidamada Soomaaliya oo dhan laga tababarayo oo ciidamada federaalka maxaa Puntland ka qadiyay mas'aad baad marti uga tihiin konton iyo afraad waa xarunta ugu weyneed ciidamada Soomaaliya waa furanta ma idinka idin sugaysaa cidna marti uga ma hidin waan leenahay iyo xiriyaha kale oo la midka ah oo dalka ku yaal qodobkaasi waa kii federaalka waa sidaas waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta yoogada la yiraahdo 16 diimood oo kala duwan baa ka jira baa la yiri Hindiya qayb kamid ah waa tii ugu xumayd waa shiriig ilaahay cidna lama barbardhigi karo ilaahay mooye cid kale wax la caabudi karo kale ma jiraan ilaahay weynahay waaxid mooye dad sanamada caabuda oo aynu ognahay xaalkooda dadka meel lagu soo rusho sujuuda intii loo dhigay mar waa sujuudayaan mar waa rukuucayaan mar waa xamadaynaa taxiyaadsanayaan hadda arrintaasi waa arrin wax laga naxo ah oo fool xun oo diin ka baxa madaxweynihii Puntland baan hogaaminayay culimadii waa ka hadashay baarlamaanku waa ka hadleen dad badan baa ka hadlay aad baan uga mahadcelinayaa wali madaxweynihii Puntland waa ku sii indhacad yahay arrintii oo wax boolojeesa kama bixin inuu marka ku talagalay oo dadka inuu gaalaysiiyo baan u aragnaa nin baa yiraahdo aabahay hay waay aabihi la keenay anagoo la yaabay maamul xumadii iyo qaran dumiskii baa hadda la keenay dadkii diinta laga saaro ma aha taas midaan aqbalano dadka Soomaaliyeed anaga shacabka Puntland matalaha oo odayaasha dhaqanka ah ma aqbali doono mana yeeli doono dadka iyaga in la gaalaysiiyo iyadoo dhalinyaradii iyo ciyaalkii yaryara faraha ka baxeen oo foodeero noqdeen oo kuwa taariibayaan in maanta madax dalka u hogaamiso inay diinta ka saadho dumarka iyo carruurta soo urursantay garoomada isugu keento tiraahdo hal gurgurto marna la farsado marba si loo socdo waxaasi waxaan aqbalayno ma arrin falxumaa weey waxaan leenahay ha ka waantoobeen haddaysa ka waantoobeen anaga nama matalaan madaxnimada naguma matalaan taa ogaade laba qodob midna aqbali mayno in diinta islaamka dadka laga saaro aqbali mayno taa dagaal baan ka xignaa waa qodob in qarannimada Soomaaliya wax loo dhimo Soomaaliya la kala qaybsho oo maanta iftiin yar u baxay iyadana ma aqbali doono haddii alla idmo intaas aan rabay inaan u sheego dadka haddii alla idmo dawladda federaalkana waa soo dhaweynaynaa insha Allah waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed garab istaaga dadkiina yaan leedinka xigsan federaalow madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay sharafta leedin hayo waa ogtihiin haddaad beel daraysaan rabitaanka dadka oo mashaariicda ka qadisaan oo ciidamada la qorayo qaybtooda idinaan siin dadka reer Puntland ogaada kalsoonidiina waa lumiseen annagu way idin rabnaa waa idin taageerina waan idin garab taaganahay dhowr nin oo dana gaar ah wartaan hanoo qabanna annana ma doonin nabadoon maadaama gudoomiyihii afhayeenka nabadoonada tahay Puntland waxaan ku weydiinayaa ra'iisul wasaaraha maalinta dhaweeyay marka uu imaanayay magaalada Galkacyo waxaa la sheegay in uu ku xadgudbay qaab dhismeedkii ay dawladdu u dejisay inay u soo dhaweynayso isla markaana isimadii uu la kulmi lahaa iyo waxaasoo dhanba uu ku gacan seeray oo uu ka jeclaaday inuu dhalinyaro yar la kulmo arrintaasi adiga waxaa leedahay waxba kama jiraan oo iyaga marin xabaabinayay qaabkii uu u socday ra'iisul wasaaruhu
maxamed sicidaad baad u mahadsantahay arrintaa waxba kama jiraan ra-iisul wasaaraha waa ogeyd madaxweynaha puntland madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo intii casar lagu soo beegay maqribkii lagu soo beegay garoonka garowe in jidka soddonka la soo mariyey oo waddadii laamigii iyo barxaddii dadku ugu diyaargaroobay laga leexshay oo maalinnimadii xilligii dadku u diyaargaroobay garoonka laga celiyey haddana dadku soo darjeexeen oo laamiga ugu tageen oo halkaa dhex marayey waad ogeyd tanina la mid bay ahayd waxaa lagu talagalay dhowr nin oo dani soo dirsaday oo kooxda aanan jaanihi inay meel dhexe intay u galaan oo qol madow ku xirtaan dhaqaalihii garoonka ku bixinayeen iyagu dhexda kala baxaan isagana hal qof aysan tusin laakiin raganimuu sameeyey dadkiisiibuu soo dhex galay arrintaasna waxaan u aragnaa guul aan gaarray inay tahay dalka soomaaliya xakunta 10 dowladood dalku male koox gaban ah oo qabiil wato iyo waxaanu kama shaqayno qarannimaana deeqda nama deeqdo qoys ra-iisul wasaaraha aad baan ugu mahadcelinaynaa dadka reer mudugna aad baan ugu mahadcelinaynaa garoonka dhaqaalaha uu ku bixiyo waxaan rabnaa sidaas la mid ah waddadii madaxweynuhu dhagax dhigayay calula tanayl jaamacaddii qardhood wixii madaxweynuhu horey u ballan qaaday iyo wixii kale waa ka sugaynaa cidnan ayay marti uga noqon maamulku ku eedeeyey in ra-iisul wasaaruhu uu qaladaadkaasi kula kacay marka adigu waxaad leedahay arrinta ra-iisul wasaaruhu waa saxnaayeen dhinaca maamulka puntland ayaa qaladaadka ku jiray sidaasaan leeyahay sababtu waxay tahay waxay damceen inay qol madow la galaan oo majara habaabiyaan dhibaatada la sheegayo laleeyahay dhib baa meesha ka jiray mid iyagaan ka maqalay wax dhibaataahi ma jirin ra-iisul wasaaruhu 10 kun oo qof buu dhex marayey oo arkaysa meel walba baraha bulshada wax dhibihina ma soo gaarin waxayna rabeen cidnana inaysan tusin isimada iyo dhaqankana waa ku been abuuranayaan beentood wey afar nin oo cidlaa ku jira